موضوع وكهد لهيي خير خلق الله إلهي أنت وأبوركي ugu khayrka badnaa khuluqiisa waxaa looga sheekeeyey khudbada dabeecadii rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ka sheekaynta nabiga laga sheekeeyo ku saabsan markii lagu dhex jiro in badan oo kamida magaciisii baa la xusayaa mararka gabal sifaadkiisii baa la xusayaa mar kastoo aad maqasho nabiga xuskiisa calayhi salaatu wasalaam waxa waajib kugu noqonaya inaad ku salido ama hal lagu amro oo amar ilaahay uu soo dejiyey korkaaga hal lagu aqriyo ama aad maqashid magaciisa ama sifadiisa oo loogu yeerayo qofka mu'minka waajib waxaa ku ah inuu ku saliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waliba waa shicaar dadka islaamka lagu yaqaano ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddii hadda khadiibku noo akhriyey waxaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي وحوليه إلهي مخلوقات كدن أبوري يا خير خلق الله أغسر مريو أغو خير بديي إساقا إيا ملائكتي سسمد أودتيي وحي كسلنا هيا النبي كركي سيكسلنا يا يصلون على النبي صلق إلهي يا ملائكتي سمتك لقوا يا ماهن هل مرمر كان كسلنا عنك وانكاس آمسينا لكن صلق إلهي يا ملائكتي سمتك لقوا يا استاق يا ماهن وحو أغسعد النبي عليه الصلاة والسلام كركيسة وحساس أغشب ما يسيدو ديو كلابو أغسعده إلهي يا ملائكتي سوا كسلنيان waxaa laga cabira ficil mudaarica wuxuuna ku tusinayaa tajaddud marba marka ka dambayda inuu cusboonaanayo oo soconayo ayuu ku tusinayaa istimraar ku tusinayaa in salligaas yahay mid daa'imo jooga oo aan go'aynin buu ku tusinayaa marka ilaahay iyo rasuulkiisu waa ku salinayaan baa naloo tilmaamay ee dadka iimaanka leh oo ahlu sharafka ah adinkuna ku saliyo salaama nala amr yaa ayuha alladina aamanu wardadki ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyo ahlu iimaanka ahaayo adinkuna ilaahay iyo malaa'iktiisa ku dayda oo nabiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam ayaana la leeyahay marka saasoo waajib u noqonayaa qof kastoo mukallafa inuu ku saliyo nabiga waajib ay ku tahay waxay kala waajibaysaa haddii aad maqasho ilaahay rasuulkiisa magaciisa agtaada lagu xuso ama aad u dhawaatid ama aad ka fogaatid mar haddii agtaada lagu xusood maqlayso inaad ku salidaa waajib ay kugu tahay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya bakhiil waxaa la yidhaahdaa bukhligiisu uu kaamil yahay oo uu dhammaystiran yahay qofka agtiisa laygu xusoon igu sallin kaasaa bakhiil la yidhaahdaa buu yidhi marka haddii aadan rabin inaad bukhalada ka mid noqoto waciidka shadiidka ahi uu ku soo arooray korkooda markii aad maqasho nabiga magaciisa ku salli calayhi salaatu wasalaam in kor loo qaado oo shicaarku sidaas uu ku muuqdo iyo inaad la aamusto hamsi aad kula timaado midka lagaa doonayaa waa inaad kor u qaado la maqlo salliga shicaarkiisa waayo waa waajib waa shay waajib ah marka shicaaraadka la muujinahayana
oo jamaca loo muujinayo waa ka fadli badan tahay marka fardiga loo muujinayo sida salaada jamaacada aad u aragto waajibka ah markii qofku keligii uu dukado waxa ka fadli badan oo ka ajar badan markii jamaaca uu ku dukado qofku marka shicaarka mu'miniintu markasta markii jamciisu ziyaada thawaabkiisa ziyaada markii la maqlo magaca ilaahay rasuulkiisa salligiisa lala soo booda khudbada marka ka sheekaynta looga sheekeeyay maanta khuluqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay waxyaabaha bishan aan ku jirno kaleeta laga sheekeeyay ka mid tahay waayo waa shahr bishii nabiga la dhalay weeye calayhi salaatu wasalaam shahru mawlidi rasuulka dhalashadiisa bishii ku beegneed weeye waa shahru rabiicil awwal bishii rabiicul awwal ee ilaahay koonkan uu qurxiyey oo lagu ziineeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ahalkiisii wanaagsanay lagu abuuray weliba kii ugu khayrka badnaa koonkan loo soo saaray weeye habeenka nabiga la dhala calayhi salaatu wasalaam iska dhaaf siinada dhulka la qurxiyey oo geedaha dhammo ay digrinahayeen habeenkii oo dhagaxdu ay dildilaamayeen oo ay nabiga ammaantiisa qaadayeen oo ay ku sallinayeen oo ay salaamayeen jaamidaadka iskaba dhaaf wax alla waxa adduunka joogay oo waxa aakhiro joogaba habeenkii ay farxeen weeye in cid kastoo iimaan loo qadaro iimaan leh habeenkii farxu u soo hoyday weeye waa habeenkii jannada la ziineeyey oo xuurul ciintu isla dhawaaqeen waa habeenkii samaawaadka laga dabaaldegay oo malaa'igtoo dhammo ay dabaaldegtay oo ahlu samadu ay aamin noqdeen malaa'igta ilaahay samada dejiyey waxaa madax u ah jibriil baa madax u ah ardadana ilaahay banu aadamkuu dejiyey nebigeennu madax uga dhiga calayhi salaatu wasalaam ahlu samada malaa'igta madaxoodii oo jibriil ah yaa waxaa khaadim looga dhiga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ra'iisul ardi ah marka ra'iisu samaawaati wal ardi wuxuu ahaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam buu ahaa markii adduunkan laga guuro aakhiro la tagana ra'iiska kalka maamulahayo ilaahay midigta u geliya waa nebiga calayhi salaatu wasalaam adduuniya aakhiraba ra'iiskeedii baa laga dhigay markaasaa looga sheekeeyaa siiradiisa ahlu samadu habeenkii ay aamin noqdeen wuxuu ahaa habeenkii nebiga la dhala buu ahaa calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dhalay yaa samaawaadka waxaa iskori jira shayaadiinta ayaa iskorkori jiray markaasay malaa'igta sheekadeeda soo dhegaysan jireen markii ilaahay rasuulkiisa koonkan loo soo saaray yaa albaabkoodii la xidhay difaaca samada la gelshay waxaa la siiyey dambaaburo holcayda bahalladan xidigaha oo cirka joogaad arkaysaan oo kor naga xiga ilaahay subxaanahu wa tacaala saddex xikmo baa ku sugan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u sameeyey saddexdaa xikma waxaa weeye samada waardiyaheeda waa yihiinoo cirkaa lagu ilaaliyaa shayaadiinta looga ilaaliyaa cirkana quruxdiisa waa yihiinoo waa lagu qurxiyaa oo ziinay u yihiin dadka dhulka jooga badda iyo baxarkana waa ku hanuunaanoo calaamay u yihiin saddexdaa calaamay leeyihiin kuwa dhulka jooga xidigahaasay calaamo ka dhiganayaan meesha ay ka xigaan jihaday u socdaan ay ku gartaan kuwa badda ku socda iyo kuwa biriga ku socda intaba calaamay u yihiin wa binajmi hum yahtaduuna ilaahay qur-aanka ku leeyahay xidigaha ayay ku hanuunahayaan xidigaha ayay ku toosayaan xidig hebel ma soo baxay xidig hebel ma dhacay halkaa kan ka xiga waa u garanahayaa inuu koonfur ka xigo halkaa kan ka xiga inuu waqooyi ka xigo halkaa kan ka xiga galbeed inuu ka xigo wa binajmi hum yahtaduuna ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala xidigaha ayay ku toosayaan ay ku hanuunayaan samadana ziina looga dhigayoo walaqad zayanna asamaa'a addunyaa bimasaabiixa baa ilaahay yidhi samadan waxaan ku qurxinnay faynuusyaal baan ku qurxinnaa ilaahay yidhi marka samadana ziine bay u yihiin oo waa lagu qurxiyey haddana difaac waa u yihiinoo
waxa ilaahay tilmaamaya subhanahu wa ta'ala inay u yihiin dadka shayaadiintana radmi bay u yihiin walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasaabiha waja'alnaaha rujuman lish-shayaadiina ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala marka shayaadiintana radmi bay u yihiin oo markay iskorkormaagaanba xidig baa lagu soo deynayaa asa lagu baabi'inayaa iyaka dhano lagu gubayaa ma iskori karaan waxay bilaabatay difaacaasi habeenkii nabigu dhashabuu bilowda calayhi salaatu wasalaam ahlu samadu aamin bay noqdeen sirtooda lama soo xadi karo qofaan ilaahay siina kama heli kara sirtooda malaa'igta difaaci habeenka bilowda saaran ma la ogola ahad kalena ma kori karo habeenkii nabiga la dheelminaya laylatul isra wal mi'raj waxaad arkaysaa xadiidka saxiix al-bukhari oo yani kutubaha ummahaatu siti ku yaala ilaahay rasuulkiisa jibriil baa israacay laylatul isra wal mi'raj masjidka xaramka laga dheelmiyay ila masjidul aqsa baa la geeyay meesha uu ka koray samaawaadka masjidul aqsa buu ahaa masjidul aqsa ayuu daabadii oo maka ka qaatay halka ku xirtay markaasuu masaajidka waxa loogu kulmiyay baytul maqdis ambiyadii ka horreeydo dhana loogu soo kulmiyay markaas salaad loo istaaga markuu soo galay markaasuu safkii galay imaamkii markii la koranayay ayaa jibriil gacanta ku soo dhagaa suura anta imaamuhum waxa taa imaamkoodii duji salaada buu yiri markuu salaadii dujiyay ka bacdina wuxuu ku yiri ya muhammad atadri man salla khalfaka buu yiri ma garanaysaa duulka gadaalkaaga ku dukaday caawa markaas buu yiri la ma garanayo markaas buu yiri salla khalfaka kullu nabiyyin ba'athahu allah ta'ala buu ilaahay nabi oo soo saaro dhan gadaalkaagu caawa ku dukada buu yiri marka waxa la tusiyay meesha lagu muujiyay inuu kuwii hore iyo kuwa dambaba imaam u yahay asagu oo ahad muqaddamka iyo oo sajirinin ilaahay inuu hormariyay oo mid ka horeeya oo se ka horeyn oo sanna ka daba marayn yaa halka tasliye loo siiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaasoo samada ka koray jibriil baa saaxiibkiisa ahaa samada ugu sokaydo samaa'u dunya markuu marayo malaa'igta waardiyeynaysa waxay ku tiri waa kuwama waa kuma markaasuu jibriil baan ah man macaka bay dhaheen markaasuu yiri maci muhammad aw qad ursila ilayhi uruujka samada uu soo koray ma loo soo idmay laanahu min ahli al-ardi wuxuu kamid yahay ahlu al-ardiga amar bay uga furayaan qofkay ka furayaan samada la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'marun ba ilaahi yiri subhanahu wa ta'ala waxa ilaahay faray fartoomayaan marna ma caasinayaan malaa'igtu marka jibriil bay waxay weydiinayaan ma loo soo idmay inuu samada soo koro markaas uu leeyahay waa la idmay maaduun weeye waa la idmay markaas ay albaabka ka furayaan toddobada samo mid kasto kamida bawaabiina joogta albaabka ilaalinaysa laga galayo markaas ay waxay weydiinayeen waa kuma waa jibriil markuu yiraahdo yaa kula socdo micigaaga bay lahaayeen markaas buu wuxuu lahaa maci muhammad baa micigayga abu lahaa markaas ayay waxay su'aalayeen in la soo idmay oo samaawaadka loo soo idmay inuu soo koro ayay jibriil weydiinayeen wuxuu u khabraya malaa'igta in ilaahay idan siiyo soo idmo samaawaadka korahayo habeenka laylatul isra wal mi'raj asagoo ilaahay uu idmay oo maqaamkiisa lagu daahirinayo yaa fawqa sab'i samaawaat ila ma sha Allah ayaa la waday nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaan uga jeedaa samada xijaabkeeda waxa la adkeeyay habeenkii nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ahlu samadu aamin bay noqdeen ahlu ardiguna aamin bay noqdeen intii raacdo rumaysay oo wadadiisa ku socota ayaa aamin noqonaysa adduunka aakhirana aamin bay noqonayaan wax kasto musiibaha oo dhibaataha ku dhacana waa ku sabrayaan markaas ay maajuuriin ku noqonayaan oo ajar baa laga siinayaa wax kasto wanaagahay la kulmaana ilaah bay uga shukrinayaan markaas ay maajuuriin yihiin المؤمن كله خير بوير النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن كله جوا خير هدي دباتا أسيبتا واكو صبر يا مركز ومأجوري هالأجر سين هدي فرح يا وحو كفرحة يا سيبانا إلهي يوغا شكرنا يا الحمد لله بوليه
markaasaa loo ilaahay iska ajar siinaya labada jeerba waa maajuur weeye mu'minku marka kulligii sidaasoo khayr u yahay bishaan marka hadda aan ku jirno waa bishii wanaagga badneedoo la soo saaray khayru khalqillaah waa bisha islaamku meel kastay joogaan dabaaldegayaan habeenkii uu dhashay sidii jannada looga dabaaldegay oo jannada loo qurxiyey oo xuurul cayntu u dabaaldegeen oo geeduhu u dabaaldegeen oo cirku u dabaaldegay oo makhluuqaadka dhulka iyo kuwa samaduba ay u dabaaldegeen alal aana sidii baa loo dabaaldegayaa markay soo ekaata bishaan lafteeda rabiicul awal markaasaa waxaa laga sheekeeyaa siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam min siiratihi alkhuluqu siiradiisa waxaa ka mid ahaa khuluqa xasanka ahaa ka mid ahaa ilaahay marka wuxuu ku yidhi aayadda hadda aan ku furfurtay wa innaka la calaa khuluqin cadiim sayidka muxamedahow waxaad korkeeda ku sugan tahay guhaad cadiim ah waxaad ku sugan tahay dabeeco cadiim ah waxa ilaahay cadiim ku tilmaamay yaa markaa dhihi kara intaasi la egyihiin ammaan ilaahay ku tilmaamay cadiim ilaaha cadiimka ah cadiim ku tilmaamay yaa markaa malay kara intay la eg tahay ilaahay unbaa garan kara wa innaka la calaa khuluqin cadiim baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxaad ku sugan tahay dabeeco cadiima ahaad ku sugan tahay korkeeda baa ilaahay leeyahy khuluq cadiima ayaad korkeeda ku sugan tahaa buu yidhi asxaabta yaa markii xadiidkii hadda khudbada ku jiray ilaahay rasuulkiisabaa asxaabta wacdinayay markaasuu xadiid ka koobnaa 3 shadri ayuu nebigu tilmaamay oo markaa ku wacdiyey wuxuu ahaa xadiidkaasi ittaqi llaaha xayثumaa kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وحو الدردار مع أصحاب تيسة وحو كيري وحي أصحاب الله دردار منا أنكنا وانا لو دردار ما كلام كيسو ما قسايا كليا كوي لتشوغ النبي أصحاب تاها وحو قسايا قف كستا أو إيمان له إنه يعني وحال الله أمري ومأمور كويه قف كستا إيمان لهينا أساقنا مأمور بو كويه oo waxa weeye inuu sida u hanuuno u toosaa la doonayaa weey marka ittaqillaaha haythu ma kunta meel kastood ahaata ilaahay kaga cabsabuy haddaad soo jeedo haddaad hurdaydo haddaad muqiimto nagtahay haddaad musaafir tahay haddaad fadhisid haddaad taagan tahay xaalad kasta oo aad ku sugan tahay cabsida ilaahay ku dheehnaw xaalad kastood ku sugan tahay إلهي عبسيدي سهم وغانو قلبي غاغا هكو جرتو اتق الله حيث ما كنت هداد سوچيد كو سوچود إلهي عبسيدي سه وأوامرت إلهي قادو هداد سيحيد كو سيحا أوامرت إلهي هداد وحعونيس كو أوامرت إلهي هداد قورسيد كو قورس أوامرت إلهي هداد فريس كفر أوامرت إلهي اتق الله حيث ما كنت ورميل كاستود هات إلهي كغعب سبو يرين نبي عليه الصلاة والسلام شطرق اللبات وكحجي وحويري قفك إلهي كعب سنة يلفتيسة ذنبي باك دعية سيئلي هدي ذنبك كدعو ذنبك مؤمنك مركو كدعانا مؤمنك هو حنون سنة حنون كنا داوة وليه وهي حديث نبي وحوها عليه الصلاة والسلام إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم بوير إلهي عذر سومدج إلا عافمات بأسودج يبوير هل عذر كلجي سماهني وعذر كالدقن ماذا أساق الداوام مال الأسودج يي وحوي عمري جاجا عبادة الجتبسية عمري جاجا عبادة الجتبسية لكن عذر كستا أسودجي عذر كستا والله أركي عافمات دواء إلهي سودجي دواء الأسودجي مركا هدي اللي يري قفك مركي ذنبي كردعوا حنون سنة محا حنون كاس داوة إلا حنونك هو عذر ومروك قفك التي رنيه وحا داوة حديث كان نبي تلمام عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذه ذنوبك دعدو مركي ذنوبتك دعدو وحد راسي ذا حسنة أيضا تريده وحا تريسا وامحي وحا تريسا قفك مركي ذنبك كردعو ذنبك شؤمبكيس ونقطة سوداء دبيع يرو مدوب ونقنياه دبيع داسي حقابي كدعيسا ما بدو نظر الله
fiirada ilaahay meesha ay ku dhacdo qofka ugu qaalisan oo qalbiga ayaa dhibicdaasi ku tirantaa dhibicdaas yartaa oo dambigii shu'migiisa haddii aad tooba keento ilaahay u noqoto ama xasanaba aad raacsiido dhibicdii meeshii waa ka tirmaysaa caafimaad baa marka qofku yeelaya dhibicdii oo la jiraday qofku oo mugdiga ahayd oo qalbigiisa xibinta qaaliga uga dhacday murug baa qaaday xadiidkii imaamu nasaa'i waa kii ahaa wuxuu yidhi man saratu xasanatuhu wa saa'atuhu sayi'atuhu fadalikum almu'min buu yidhi qofka xasano markuu sameeyo ku farxa markii dembi ka dhacana muruga oo jirada kaasi waa mu'minkiina ku calaamaysta buu yidhi markii xasana ka dhacda waa farxaya asoo ilaahay ku shukrinaya ilaaha waafajiya asoo isma waafajin woodna kuma keenan mana xeelaysa karo marka ilaahay waafajiyo ku shukrinaya oo farxaya ilaahay buu ku shukrinaya haddii dembi ka dhacana waa murugaya xanuun baad ka dareemaysaa markaasoo cararaya daawo raadsanaya maxay tahay daawadu waa digriga ilaahay buu ku daaweynayaa markaasaa waxaa ka tirmaya dhibicdii madoobeed mugdigii baa ka baxaya markaasuu wuxuu noqonayaa mid ku sifooba xadiidkii kale attaa'ibu min adembi kaman laa demba lah ruuxa dembi ka tooba keena kaannamaa isagoon dembaabin oo kale buu noqonayaa dembigii baa ka tirmaya qofka marka mu'minka ah markii dembi ka dhaco ilaahay buu ku cararayaa oo ilaah buu u tooba keenayaa dembiga xataa waa kala weyn yahay dembiga qofka uga dhaca si sudfaa uga dhaca haddii buu ka tooba keenayaa haddiibana waa laga tiraa waxaa jira dembi qofka ka dhacayo istustus uga dhaca asagoo makhluuq isku tusayo isla weynanka midka kaaga dhaca aad isla yaaban tahay iyo istustuska dadka aad istustusaydo midka kaaga dhaco ummadda aad isku tusinayso inta aad istusinaysa toobadaada waa inay ogaato ayakuna si ay beri kaaga marqaati kacan inay dembigii ka noqotay shaydaanka wuxuu kugu dhiirigelinayaa ma dadkan hortooda wax xun ku samee adigu waxun markaa isma lihid laakiin waa waxuna qabiisa dembiga inta marqaati uga dhigtay waa ka daran yahay midka kaliga adoo ahaad ogeed waa kaaga daran yahay waayo ummaddu waa kugu marqaati kacaysaa intii ku arkaysa wax alla waxay kugu arkayeen kaaga marqaati kacayaan shaydaanka marka wuxuu kugu dhiirigelinayaa markaad la joogto dad badan inaad waxyaabo badan oo isku tusisaysa aad samayso si lagu yiraahdo hebel miya salli ala muhammad wa alihi allahumma salli ala muhammad wa alihi shar'u shar'u ahmada wa dinu ma bada bihi allahumma salli ala muhammad wa alihi ya jamal mustafa كبدر في كماله اللهم صل على محمد وآله الحال الأمير ألم ترى جسمانه اللهم صل على محمد وآله محب عاشق برؤية حبيبه اللهم صل على محمد وآله محمد وآله marka dembiga kaaga yimaada istustuska oo ummadda marqaati aad u gashato waa ka cadaab adag yahay midka kaliga aad gashay waa ka cadaab badan yahay waxaa soo maray nabiga calayhi salaatu wasalaam subax mayd baa la soo marsiiyey markaasaa dadkii fiiriyeen waa yaqaanaa ninka dhintay waxay dhaheen hebel buu ahaa wuxuu ahaa kii xumaayoo dhibka badnaa kii ummadda dhibi jiray kii saas ahaa wax daran bay uga marqaati kaceen markaasuu nebigu inta fiirshay wajabad waa gudubta taasi janaaso kalaa la keenay oo la soo marsiiyey markaasay dhaheen waa hebel waa kii salaada badnaa waa kii soomka badnaa waa kii qur-aanka ku soo jeedi ogaa waa kii qaraabada xiriiri ogaa waa kii wanaag falaha ahaa ayay ku ammaaneen markaasuu yidhi nebigu wajabad calayhi salaatu wasalaam markaasaa nin saxaabiyi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiiso kii horena waxaa tihi wajabad kan dambena waxaa tihi wajabad ilaahay rasuulkiiso maxaa waajiba buu yidhi markaas buu wuxuu yidhi kaas waxaad ku sheegteen inuu sharlow yahay naar baa u waajibta sharta ilaa waxa waaye miraheedu waa naar baa u waajibta buu yidhi
midkaana inuu khayr low yahaad ku ammaanteen asagana janna u waajibta buu yidhi antum shuhadaa'ullaahi fi lardi waxaad tihiin markhaatiyaalkii ilaahay oo ardada joogaa tihiin buu yidhi marka ummaddu kuwana khayr bay kaaga markhaati kacayaan kuwana shartay kaaga markhaati kacayaan lama markhaati gashada dembi waa la iska ilaaliyaa xibnahaaga laftoodu inkastay shuhadada ka mid yihiin oo kugu markhaati kacaya makhluuqaadka oo dhammuna shuhadadaada ka mid yihiin waxay kugu arkeen hadday ciidda tahay hadday dhagax tahay hadday geed tahay makhluuqaadka dhammaantii intii kugu eedu waxa aad samaysay ama jaamid ha noqdeen ama hayru jaamid ha noqdeena waa kugu markhaati kacayaan maalinta qiyaame waxaa la markhaati gashadaa ilaahay digrigiisa la markhaati gashadaa waxa wanaagsanaa la markhaati gashadaa waxa wanaagsan ha kaaga markhaati kaco dhagaxan maanta aan dhex taagannaha masjidka jaamica waxa dhagax ku dhisan waxa shamiito ku dhisan waxa ciid ku dhisan waxa alwaax saaran waxa kumustaato saaran waxa bira saaran kulligood waa kuu markhaati kacayaan meesha aad ku sujuudda say kuugu markhaati kacayso oo maalintii aad geeriyooto ay u illimeynaysay u booyeysa aadada adigu u jeedin ayay kulligood kuugu markhaati kacaya khayrka kaaga markhaati kacayaan meesha yani maxaa loo yidhi xoolaha meel la geliyo meesha ugu fiicani waa masjidka maxaa loo yidhi waqafka ilaahay ardadiisa ardadii ilaahay baa iska leh marka buqcada ugu khayrka badani waa xaggee waa masjidkii waa meeshii loo calaameeyey sujuudda waa meeshii loo calaameeyey addoonku markuu ugu tawaaduc badnaa aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid masjid baa la yidhi waa mawdicu sujuud meesha lagu sujuudo waaya baa la yidhi meesha marka ugu fiican weeye meesha ugu fiican weeye waa kuu markhaati kacee wanaagay kaaga markhaati kacaysaa markaad albaabka ka soo galayso aad tajarud samaynaysaa waxaa iska dhartiraysaa wax alla wixii xumi ah ayaa markaasaa niyo fiican la imaanaysaa duca adkaar gaara bay leedoo lagu soo galo lugta midigtaaha soo gelinaysaa markaad soo gashaa salaamaysaa taxiyatulmasjid baad dukanaysaa markaasaad haddana adabtii ku sugan tahay tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo takbiir iyo qur-aan baad wadaa ilaahay xuskiisa ku xusuusinayaa masaajidku ilaahay buu ku xusuusinayaa meelaha xuxunka ah oo kale waxay ku xusuusinayaan waxun bay ku xusuusinayaan marka makhluuqaadka xatal saas kala ah labada shay oo adduunyada lagu haayo yaa ilaahay calaamo u kala yeela midba calaama ku xusuusinaysa suuqa haddaad tagto muxuu ku xusuusinayaa adduunyo ku xusuusinayaa tafakur adduunyo ku xusuusinayaa maal baad ku xusuusinaysaa maali baad la qaliyaysaa xisaabaad ku mashquulsantaha adiga dhammo digrigii waad hilmaansan tahay wixii kale waa ku hilmaansiinayaa markaasaa suuqa waxaa lagu tilmaamay meesha shaydaanku calanka ka taagto oo ilmaha ugxaanta uu dhigto waa meeshaasaa la yidhi waana meesha ardada ilaahay lagu necab yahay meesha lagu jecel yahana waa masjidka laguma degdego lagumana daba maro dadka midka ugu horeeya ha noqon buu yidhi gabadhii nebigu la ballamahaya wuxuu ku yidhi ha noqoni suuqa qofka ugu horeeya qofka ugu dambeeyana ha noqon buu yidhi laakiin masaajidku waa cagsi qofka ugu soo horeeya noqo qofka ugu dambeeyana noqo qofka ugu dambeeya noqo qofka ugu soo horeeyana noqo amaakinta khayr kale oo dhama saasa marka xadiidka wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa buu yidhi markii sayi'a ay kaa dhacdo waxa weeye xasano raacsi ayadaa tirayse wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka waxaad kula mucaamalootaa dabeeco wanaagsan kula mucaamalooda buu yidhi caaisho waxay ahayd zawjaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu riwaayada badneed axaadiida nebiga haddana nebigu oo ugu jeclaabay ahayd markaasaa asxaabtu waxay dhaheen caaishay nebiga dabeecadiisu say ahayd bay dhaheen markuu bannaanka joogo waa aragnay markuu masaajidka nala joogo waan aragnay markuu guryaha joogo ayay wax ka weydiinayaan caaisho markaasay dhaheen nooga warran khuluqiisa dabeecadiisa nooga warran markaasay waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan dabeecadiisu qur'aankay ahaaday tiri qur'aanka kariimka aha dabeecadiisu ahaad bay tiri halka ay ku xirta fiir caaisho kaana khuluquhu lqur'aan
وحلا وحو فرو فرتومي وحلا وحو كريبنا وكريبتومي ضبيعديس وحي هي قرآن كريم كابه قرآن كريم كاه إلهي كسفي لبدي حديث oo hadda khadiibku uu soo qaatay maxay ahaayeen waxa dhaca dagaal inta badan dagaalada nabiga hogaami jiray calayhi salaatu wasalaam waayo hadda dagaal khayr badan buu ahaayay moogta mararka gabal wuxuu uga dib dhici jiray asxaabta aan haysan xoolo ay ku duulayaysan murgan markaasoo inuu qalbigooda ilaaliyo daraadeedu ayaga la joogi jiray waayo waxay tamanin jireen inay nabiga la socdaan mar walba dagaalkiina waa fogaaday daabaday raacaana ma haystaan xoolo ay ku gataana ma haystaan hubna ma haystaan qof walbaana asaga hubkiisa diyaarsanayay markaas yow dhihi jira ninkii laba daabadood haysto walaalka daabadsi buu dhihi jiray 400 oo saxaabi yaa meesha masaajidka dhinaciisa dambe ah مكان لديه جرى صفو وحال لديه جرى مكان مضلل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان له سيو مساجد كنبي كويا الله يا صفو لديه جرى أفر بقول أو سحابي أو مهاجرين تي وجب بدنيهم ولبا أيك أيهم مركب قبل التلمام يا ماشى كوي يجرتي أفر بقول كاسي ما لنتينا قريه يسوق جريتين أنت سوق تاني هبانكي يي waxay kala bixi jireen tamar yaray dhuuqaan ay kala bixi jireen maalintii qoryahaas soo gura jireen habeenkiina quraanka ku leeyli jireen waxay diyaar u ahaayeen dagaalka ay diyaar u ahaayeen waxay jeclaayeen marka nabiga inay la joogaan ويسا كأكتغيني جعلاي تجدي سادي بيس مركو كتبو إنه كتبو وادي بيس مركاسو كوا حوالها هيستا ودابدا سمايستي وقمونا سمايستي وورما سمايستي وقناحية سمايستي ودرع بريد سمايستي كوا اسنا مربو دقالك لقلي ورالي قليني ودقالك حق نمدي ستوسيني كوا أن قد كرينو تشوغنا مربو رادي قليني النبي عليه الصلاة والسلام مركا كوا سوحا لديجر أهل الصفا لديجر رجي أبو هريرة كميد هاوي مهاجرين تبع هاي ودن كودي ضد كودي الدنيا دودي وكسوة هلابة وكسوة نبي سؤال عليه الصلاة والسلام إلهي الرسول كيس إيمان وضدك الدين كان كده حلي أبو هريرة وحالي وهذا وصو إسلامته أحاديث أدورين يسمى إسرائيليات هالي مقالة هرا كتابه دي وحكا غريسة هالي ونقول ريد النبي عليه الصلاة والسلام وهذه أحاديث فربضان ورينيه مركز بوحوجيري أنا كنا وحان راضي كنا غضب ويري أكتوك النبي عليه الصلاة والسلام محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى اللهم صل وسلم محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم وأحسن منك لم تر قد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم وأحسن منك لم تر قد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم
قيامي للعسيس علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى عجبت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء عجبت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم فإن أبي ووالده وعردي لعرض محمد منكم وقاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليه فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا والروح القدس ليس له كفاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى عليه وسلم ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النوع من كنفيك دائي وجبريل رسول الله فينا والروح القدس ليس له كفاء يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد اللهم صل بركة أبو هريرة وحويري رضي الله عنه وأرضاه وعن راضي كن نقضى بيري أكتوغ النبي عليه الصلاة والسلام إنه نبي أكتوغ وراضي كن نقضى رجنا وحا مشغولية بير قرقر أي سوقة كو قرقر تميان إن أي سوقة كو قرقر تميان رجنا مشغولية وحن إلهي رسول كيس كوري أكتوغ يسان قوري بير الدنيا مركا وحو uga mashquulay agtooga nabiga calayhi salaatu wasalaam labada marka qolo oo qolana dagaalka ay aadayso qolana aysan uwoodin waxay ku aadaan ayuu marna kuwa raadi gelinaya nabigu marna kuwaas uu raacay dhacdo uu raaca kuwaas oo dhulka najdi oo u raacay ya maalin waxa la degay meel kulul baa la degay markaas nabigu geed hoostii buu harsaday seeftiisii buu geedkiisa u surtay nabigu wuu seexday calayhi salaatu wasalaam asxaabtuna geeda hoos la hiraadsadeen iyaguna waa seexdeen markaas waxa u yimid nin heer baadiyaha gaal ah ayaa ilaahay rasuulkiisa u yimid wuxuu arkay inuu hurdayo seeftiisii ayuu soo siibtay seeftii uu gasha kala baxay markuu seeftii gasha kala baxay yaa ilaahay rasuulkiisu ku baraarugay markaas buu wuxuu yiri yaa iga kaa celinaya buu yiri axad kalena lama joogo asxaabtii kamidii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas ayuu wuxuu yiri ilaah baa iga kaa celinaya kelimada markuu yiri allah baa iga kaa celinaya ayaa seeftii dhulka uga dhacday ninkii herbaadiyaha ahaa wuu jarciyay markuu jarciyaa seeftii ka dhacday markaasaa ilaahay rasuulkiisu qaatay markii ilaahay rasuulkiisu gacanta ku dhiga seeftii ayaa ninkii herbaadiyaha qayliyay
markuu qayliya asxaabtii ka war heleen qaylada waa soo kala ordeen markaasaa ilaahay rasuulkiisu wuxuu ku yidhi yaa iga kaa celinaya hadda adiga awlusan ilaahay aqoona wuxuu yidhi kun khayra aakhid mid seef qaata kan ugu khayr badan noqo oo maanta hay dilin buu yidhi markaas buu wuxuu ku yidhi ilaahay ma waxidaysaa oo ma islaamaysaa markaasuu yidhi maya ma islaamayo meesha uu taagan yahay fiiri haddii ilaahay khayr kula damco hidaayadu ilaahay bay yaddiisay ku sugan tahay qofku doonowna hanuuniyaa isagoo in la dilo qarka u saaran oo seeftii ka gariirtay gacantii nebiga ay gashay calayhi salaatu wasalaam asxaabtii oo wada hubaysanuna ay geedaha soo istaageen kulligood yaa ilaahay rasuulkiisu wuxuu uga faa'iideynaya naftiisa inuu islaamka soo galo oo uusan naar ku baaqi noqon waayo ummadda dhammu nebigu wuxuu ku dheganaa guntiga ana aakhidun bixujazikum wa antum tatafallatuuna minii guntigaan idinku dheganaa adunkuna waa iga baxsaydaan oo naartaad ku dhacaydaan buu yidhi islaamnimadii ku baryayaa markaasuu yidhi atashhadu an laa ilaaha ila allah ma qiraysaa ilaahay waaxidnimadiisa wa annii rasuulullah ilaahay rasuulkiisii inaan ahma qiraysaa markaasuu yidhi laa maya inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun markaas buu yidhi ma qiraya laakiin hal baan kuu ballan qaadayaa buu yidhi waxaan kuu ballan qaadayaa weligay inaana kula dagaalamin cid kula dagaalamaysana aana gacan siinin markaasaa inuu yidhi nebigu iska daaye sii daaye buu yidhi halkaasuu isaga falacsaday waa iska tegey ninkii u soo qasday inuu dilo surka ka jara nebiga calayhi salaatu wasalaam haddana seeftiisii qaatoo gasha kala baxay sida nebigu isaga cafiye fiiri war ninkii aniga idili tegey ha sii daynina surka ka jara ma dhihin nebigu calayhi salaatu wasalaam waana gaal hadda fiiri waa gaal dhiiggiisa uusan yacni aan iimaan lahayn wey oo dhiiggiisa uusan xurmo lahayn waxay ku tusinaysaa dabeecada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku tusinaysaa dabeecadiisa iyo sabarkiisay ku tusinaysaa maalin kale nin heerbaadiye waa iska jaamida ma og tahay mid heerbaadiyaha u yimid oo rati wata markaasuu ratigii meeshaasoo kale inta fariisiiyey ayuu ilaahay rasuulkiisa soo aaday waxaa surka u saareed maro cusub oo sarbideedu adag tahay markaasuu maradii inta ku qabto ku ceejiye nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku jiida weliba surkiibuu ka murujiye nebiga safxadiisaasaa muruqday asxaabtii baa ku soo kala orday inay ninka ka qabtaasuu yidhi iska dhaafa buu yidhi markaas buu yidhi yaa muxamedow maalka ilaahay kuu dhiibo agtaada wax iga sii buu yidhi oo ratigaas maal iigu raro buu yidhi markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisa ratiga u raro buu yidhi maal ugu rara buu yidhi masage iyo galley iyo shaciir iyo durro iyo haluugu rara buu yidhi surkii nebiga dhiiga ka socda maradii waa ku ceejiye ilaahay intuu abuura kii ugu khayrka badnaa weeye madaxweynihii islaamka kuwii hore iyo kuwii dambe weeye dabeecadiisa fiiriya layinka oo soo ula dhaqmaya dabeecadiisa fiiri wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay sayidka muxamedahow dabeeco cadiima ahaad korkeeda ku sugan tahay buu ilaahay marka masiyada uu siiyey makhluuqu ma yaqaano inta ay la-eg tahay ilaahay baa garan karaa bishaan marka aan ku jirno waa bishii loo damaashaadhayay dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadaas gaalkoo dhammi waa caroonayaa munaafiqiinta labashaarayaalka waa caroonayaan mubtadicadu waa caroonayaan saddexdaasiba caray dhiq la yihiin bishaan carada ka hayda in bilaha laga reebo xataa waa niyeysan yihiin
بالشاعرة أي قبان إلهي رسول كيسة مركو رشي هذا قالوا رموا عرودي مولد كان في ضالع الكفر وبال عليهم ووباء دلشة الرسول كوحي هي دلشة ضب يداعون كو أقال قال كي هذا وحكا درانا بيمد وحكا دراني وامح قالك وحكا درا خوارجتا كدران قال معاما كسير ما يسوق ده يعني دين أكاغاته ما كسير ميان لكن خوارجتا وكسير معامده وحي مودان إني أهل الدين يهيني مودان وأنا ضدك إلهي رسول كيسو يري ضوبا لمن قتلهم أو قتلوه دور حديث النبي لقوري حديث كصحيحة في الضوبا لمن قتلهم أو قتلوه فأينما لقيتموهم فاقتلوه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد شوف وحو كدارته إلهي رسول كيسو هدان كوا خوارجتا هليلو إلهي خلقان كدارتي سيدي هير عاد لولا ين الله ينياب هير عاد هذا النبي وكهريين أوجو سيل لولا هير عاد سيؤدنتين سورة الحاقة سوما آخرين يا سورة ده القرآن الكريم كان لوجا شيكي فأما عاد فأهلكوا بالضاغية هير عاد سيدي الله هلاقة هداد ربط قصده ده دبيل داغية اللي يراها القدر هل دبيل أساس القدر دبيل شاسي قفنا أفكي كسو جليس قفنا كذلك جليس ورقي ووينا أيضا هل شيء كتجين يكي أفكا كجش من دعرك يوضنها يبارك يا وح الله وح على وش كتير كذلك دعين كي أي كذلك كجشانا وح الله وح كذلك على وش كتير وح صار أفكي كصباح يبناك تجين مركز إلهي وحو قرآنك كويري كأنهم أعجاز نخل خاوية وحد مودة دوغب تميرات دقوبي لحظة كدو لا شداد مودة لحظة أقمريهين يا كأنهم أعجاز نخل خاوية سورة ضفير إلهي وقصوينيه تمير لحظة كقضنتا ودقهم ميل تلواد لحظة كقضنتا أصاب الله يرك إسكا قلان كتفشيرك يا يورتا يوكو إسكا قلان لحظة كمريه ساسو كريتو dabaysha daaqiye la yiraahdo qolada lagu diray loo halaago hal ruux sida nafta looga qaado kala hal mar nafta looga qaado haddaan kuwaas khawaarijta haleeli lahaa sida nafta looga qaaday heer caad oo kala nafta uga qaadi lahaa ibuu nabiga kaleey salaatu wasalaam hadda waqtigii nabiga waxa udul khuwaysira ninkii la dhihi jiray ninkaasa oo nabigu tilmaamay inay nasligiisa ka imaanayaan ninkaana aabba u noqon doono dhali doona buu waa imtixaan la isku imtixaanaya ma ogta maahan waxyaabaha gobolkood waxa loo baaqi yeelaa ummad badan oo ajra ka hesho oo haddeertaan waad ogtihiin dagaaladii halkan magaaladan sharafta badan lagu la galay Maraykan iyo Ingiriis iyo adduunka ahlu sunnada joogta sharaftii meesha ka soo hojatay kulligood ku daaqayaan كل قد مقعاس كداغيا كل قد صرفتي هلكا كسو هويين أي كل قد صرف النقطة بدر تقالك بدر سو إسلام كوي هرايا كوي ضباب سو شرفه معه سدح بقول إيه طبعا إيه سدح أسكري بهاي إلهي رسول كيسا كم يدها وإلهي رسول كيسو دين كإسلام كأسكري يسيبوها محل لقد دحلي قلب كأسكري قال لقد دحلي waxaa laga dhaxla geeyadii daldala waxaa laga dhaxla hashii qaswa ahayd waxaa laga dhaxla gamuunadiisii waxaa laga dhaxla qonaxyadiisii waxaa laga dhaxla gaashaamadiisii waxaa laga dhaxla dirac bireedkiisii soo dhawaado turki ku soo dhawaado hadda hubkaas laga dhaxla bas intaas laga dhaxla oo diinka inuu ku difaaco samaystay dadka muuminiinta kuwaas laga dhaxlaya laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana sawma نن حارب نن حكمة ريبوير الدنيا نكي ريبة حار وريبة مكت قفنا حكمة ريبة علم قاس وريبة كتاب كان واقعية يا معلمين تدكسيدو قيبين يا صباح كاستا وحي أسوى كاللهان إن دحلك النبي قيبيان المير يرون عرب كودا كدن بابين إن دحلك النبي قيبيان أفكا أقو قران لها ساس لها يا
markaasoo kuwan dhaxalkaa qaybinaya nebigu wuxuu ku tilmaamay khayru nnaasi wa khayru man yamshi cala alardi almucallimuun liannahum kulamaa khaluqa diinu jadaduu dadka waxaa ugu khayr badan wax ardada korkooda ku kutuba ugu khayr badan mucallimiinta buu yidhi waayo mar kastoo dadka ahlu diinka duqoobaanba ayaa ka cusboonaysiinaya buu subax kasta macallin kasta wuxuu u kalahayaa inuu dhaxalkii nebiga qaybiyo calayhi salaatu wasalaam miiraadkii nebiga inuu qaybiyo dadkuna waa yaraysanayaan waa xaqirayaan moogta waa xaqirayaan macallimnimada waa la liidataa dadka isla waaweyn dadka isla waa shirkadaan uu ka shaqeeyaa hay-adaan u shaqeeyaa waxa waaye darawalaan oo gaarimaan wadaa baqaara ii furan macallimka waa xaqiraya ardada xataa haddii la yidhaahdo war wax yar ood macallinka ku taakulaynaysan keena yaa akhi macallinkaa dhib badana arbacadii bisha ku weydiiyaha uu leeyahy ya bil iyo arbaco iyo kal iyo daw iyo waxaani waa maxaa buu leeyahy waxaana loogu talagalay taqwiyatu diin in diinka lagu quweeyo oo loogu khidmeeyo macallimka si uu diinka ugu khidmeeyo asaguna waa intaas laakiin haddii niyadu kaa halowdo wax lagaa xooga aad iska dhigto xaggana waxba kuma jiran halkaana waxba kuma jiran eeduna waa ku raacday xoolo la'aana waa kugu dhacdo meel aad raalli ka ahna wixii isaga bixin laakiin haddaad ula qasado ilaahay diinkiisa inaad ku quweydo oo aad ka qayb qaadato dhaxalka nebiga subax kasta la qaybina inaad wax ka qaybido oo ummadda aad sabab ugu noqoto inuu macallinku u faaruqo qaybintaas miiraadka nebiga inuu u faaruqo aad sabab u noqoto maxaa ka liibaan badan maxaa ka sharaf badan maxaa ka qiimo badan ya maxaa ka qiimo badan laakiin shaydaanku waa ku diidayaa waa ku nacsiinayaa waa isla wax badan oo qalbiga kaga soo ridaya wax badan oo qalbiga kaga soo ridaya inaad isku sabar siidaa lagaa raba ka adkaata asaga cadowga ilaahay noo tilmaamuu yidhi ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa war shaydaanku waa cadowgiina iyo cadow ka dhigtaa ilaahayna leeyahy qalbigoo wuxuu kaaga soo ridaa isla weynan wuxuu kugu soo ridaa isla yaab wuxuu kugu soo ridaa riyo iyo istustus iyo ismaqashiinoo kugu soo ridayaa xoolahaaga iyo xilahaaga iyo xarquumkaaga wax kastood hesho kuwaasoo kaa fasaadinaya asoo adigana ku fasaadinaya waxaa laysaga ilaaliyaa ilaahay cabsidiisa ilaahay cabsidiisa laysaga ilaaliya ilaahay cabsidiisa laysaga ilaaliya ilaahay cabsidiisaan isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisaan isu dardaarmaynaa naftayda iyo tiinaba ilaahay cabsidiisaan u dardaarmayna maalinta qiyaama ayadaan isu anfacaynaa ayadaan isaga markhaati kacaynaa ayadaan isku xiriirinaynaa ayadaan isku jeclaanaynaa adduunyo isku jeclaan mayno waxa aakhiro nacfiga noo leh oo aan ku liibaanayno tani daar maahan waa daaru tacab daartii raaxadu waa dambaysaa daarta mu'minka ilaahay u diyaariyou yidhi yaa إلهي حديث القدس أوكيري أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خدر على قلب بشر يا أنا كوا إقعد سدوري إلهي سبحانه وتعالى وحن الدياري وحن إلى أركن دقينا مغلي قلب بشر كصادعين بل هم ضلعتم وحي اللي يدين دالع سيا إسكداف واحد أمام مقشي أما أد أركتي أما دمسي حق إسكدك وحان كوغو سو دحيناد كهليسا halka ilaahay ugu diyaariyo muuminka ilaahay cabsidiisa lagu gaara ittaqillaha haythu ma kunta bi marka waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa adduunyo aakhirataama ilaahay nasiib adduunyo aakhirataama ilaahay nasiib cidqi iyo aynu rahma ilaahay nasiib cibaada suuban ilaahay nasiib cibaada suuban ilaahay nasiib amalkeena maqbuul ilaahay ka dhigo umrigeena cibaadadiisa ilaahay ku qurxiyo calafkeena waasa xalaala ilaahay ka dhigo caaqibatu umur ilaahay noo hagaajiyo cadaabka ilaahay naga xoreeyo cadawgeena dibkiisa ilaahay naga kaafiyo umuraheena ilaahay noo sakhiro inteena jiran ilaahay noo caafiyo cibaadadiisa ilaahay ku qurxiyo inta caafimaadka qabtana cibaadadiisa ilaahay u ziyaadiyo allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim al-fatih